hageena markay soo qaadaan meelaha ay ku tuurtuuri jireen ayna dhicin in waalid kasta uu yimaado oo cuntadiis diyaarkiisa uu qaado taasina mid aad u adag ayay noqon doontaa waxaana meesha ka bixi doona dhammaan sharcigan wuxuu saameyn weyn ku yeelan doonaa dhammaan dadkii beenbeenta qashinka ku dari jiray guryaha hortooda iska dhigi jiray wadooyinka ku daadin jiray ayay arrintani saameyn doontaa kuwaas ayaa meesha ka bixi doona programkani waa soconay ya dadkii xalaasha ahaa صوتوس كاميرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلامي السحابتي دا سو دوادا ما انت كاميرا دا يقدر فهمتين ما عرفت هدانا سل ربك الصوت دقاي وروحان كلها لايك تي شيرت سبسكرايب كا soo dhawaada aniga ra'ligayga markaan ka hadlo waxaan la sheegayo suurtagal ma ah suurtagal waxaynu ahayn qof walba waxay joogtaa sharci wadan sharciga u yaalo minna ma ongoli naag cadaan ahaa la saaray aas xoolihii laga dhacay aase xoolihii gadmanka soo dhacda waxaan maqlaayay waxaan dhagaysay ma ah bal dhagayso sharciga yaqaanay sida fiican loogu talagalay ayaa programkooda wadanaya programyo kala badanna waa soo baxayaan laakiin tani 10 bay noqon doontaa haddaba waxaa su'aal ah weli qof ma la xidhay waxaa la soo geliyay oo kaliya hadda surgeon warrankii lagu galay businessyada iyo sabiinooyinkii ayaa la soo geliyay laakiin weli qof la xidhay ma jirto dad ma la xidhi doonaa su-aashaasa meesha taalla yes dhammaan in allay intii interview la weydiiyey dhammaan in allay intii gurigooda la galay dhammaan in allay intii hantidoodii baabuurtii dahabkii kabihii lacagtii lala wareegay ilaa iyo kabayowgii baa la qaatay ilaa iyo saraawiishii dharkii waxa laga tagay guryihii ma jirto guryihii caawa haawanaya wax xitaa go'yo ay soo iibsadeen farsaaji iyo balaayo ahaa waa la rabtay waa la qaatay dadkaasi live baan ku jiraa soo dadkaas oo dhan dhammaan qof kasta oo surgeon warran loo soo qaatay oo gurigiisa la galay oo alaabtii laga qaatay oo dawaaridii laga qaatay oo hantidii lagala wareegay lacagtiisii bangiga ku jirtayna la xanibay qof kasta wuxuu geli doonaa jeel kabacdina waxaa loo hagaajin doonaa waxa la yidhaahdo beelkaas ayuu kusoo bixi doonaa kabacdi ayaa maxkamada hadda way dhagaysta waxaana weydiiyey wiilkan wuxuu yiri haddii dadka naagtan waxaa lagu sameeyey sixir balaaga maajig waxaana laga keenay xamar iyo kenya sixirka waa ogahay inuu jiro laakiin midaan rabaa in la iga jaahil bixiyo dadka sixiroolayaasha ah yah oo maskiinyaasha ah oo weliba hatee ana qof cardhaabayn dad oo u daran yahay oo sixirka 100% lagu sheegay ay joogaan sababta maxaa waaye ee bangiyaasha ay u dhacaan u taajiri waayeen anaaba raba inaan taajiro yah naagta meesha joogto iyo dadka bangiga ka shaqeeya indha sarcad ma ku ridi karaa maya waa la maasuqay sheekooyin beenaha la qoray sharci beenaha la duwaan galshay dadaa jirinaa la duwaan galshay cuntaa la karanaa la duwaan galshay waa yeela exactly laakiin sixiraa wax lagu qaatay qof haddaa indha sarcaadiso qofta kale lama indha sarcaadi karo naagtaan naftirkeeda tuugay ahayd naagtaan yah oo soomaalida shirqool ku riday
oo soomaalida sirtay ee soomaalida ma og tahay naagtaan ma laga yaabaa inay sirdoonay naagtaan inay soomaalida waxay suubayaan arkaysay ay soo dhex gashay oo dad badan la rabo in jeel la geeyo say ku aamintay qof caddaan hadda ka hor naag caddaana say ku aamintay raayii baante hadda ka hora naag waxay iigu sheekaysay yaa warkiiaan war soo dhexgeliyey maalin baalaa igu soo dhacaye waxay idhaahdo mataqaanaa aniga waxaan ahaa muslin aniga waxaan ahaa intaasoo sanaa muslin ahaa alxamdulillah wallaahi bilaahi yaa alxamdulillah muslina aniga inay taqaain kale moogiye dadka ma aamino may waan kula jiraa wax kaa bi'imaaye kuma xaasinimaynaaye kuma cadownimaynaaye laakiin dadka ma aamino waxay tiri muslina ahay anigaa intaasoo sanaa muslin ahaa alxamdulillah haba la hadlin xaleemaa lagu dhaha waxaa buu sheeganin gooni ha ula bixin hala sheekaysanin naagti markii dambe markay waxay rabtay iga weys oo aragtay inaan qof hurdada ka soo kacda ah ee ayaka isku deeb daray ee dhaa tuugati allahi bil waxay tiri day waxaan kuu sheegaa gabareey adi muslin ma ahayn muslin ah weligay kuma riyoon inaan muslin naqna iga leh ilaahu maalinkaas haddaan wax sheegi lahaa horta waaba suuxi lahaa umalay ambaraas laleegu yeeri lahaa wejigayga wuxuu noqday in la guba camal korka waa i karkaray lugaha way jarayeen waxaan ku dhaha sanka bir kale u socday isha bir kale u socotay iyo abood iyeelay duuf la dhilaayaan ku rare guryahan iyow ka dhow waa cun lahaayaan ku yidhi laakiin aawaya fasaxaysa ciilka iga qabtay anoo wax u sheegin waad oo aaminin nolosheeda ku aaminin yaa meelay ii saarta markay weyse ee tabar ii weysay waxay soo dhegsatay inay muslim tahay bilow soomaalida marka lacagaa aroorsatay iska dhawaysin mogta lacagaa helay waa fakaday yah naagtan lagama yaabo inuu soomaalida loo soo diray ee naag soomaalida loo soo diray inay lacag jecel yihiin tuuganimada inay samay karaan hebelow inay samay karaan ee dadkeeda lasoo tashato because aqli lagu baxsaan rabaa xaggee la joogaa dunida haddaana xaggee la joogaa waa la ilbaxay dadka ilbaxyaal ay noqdeen adduunka waa hormaray sheekada waa hormartay dadka yaa la anjaafayn marka ummadda yaa la caynin wax ajaafa la yidhaha ma jiraan ummaddan yaa la caynin dadka yaa loo gafin dadkan loo gafayo maajigaa loo soo sameeyey iyo shaashaa la saaray iyo siciraa loo soo sameeyey iyo kanaa loo soo sameeyey iyo nin lacag diidaayo ma jiro dadka horta yaa la dhaamin dadka yaa la caynin aflagaadada waa reebanta yaa naag caddaan ah oo waxaan ku dhahay cad adigoo xumo madoow ah see ku aaminta iishaag nin walba waa is ilaaliyaa nin walba oo meesha uu luku lee waa is ilaaliyaa laakiin naag caddaan aha in la aaminayaa aroo waxa loo dhiga naga caqli ma qabaan miya war naagtaan geemay idii ciyaartay naagtan waxaa la siiyaa xilfad qalinjibin ah sirdoonnimo a la siina ininkan meeshaa ku qasaartay kulligiin xabsi adii kula guraa xabsi adii kula guraa wallaahi sheekada saad moodaysiin ma aha sixraa la sameeyey maajigaa la sameeye ma ahan
naagtan waa naag fikirtay dadkaana waa dad waa la joogaa dadka marka la bixi waayo amba ahayna qof la rabo in la dabo yah maxaa badana idiin daadsheen seey ku dhici kartaa aniga wax dhici karaan rabaa meeshii badarka iyo hebelowga ma ah waxaba yaani iskala keen daawareejin yah daawareejis ma jiro baawurka ugu qaalisan oo 30 kun 40 kun 50 kun 100 kun oo doolaraan soo gadanaa naag caddaanaana wax ii saxiixaysa waana haddii la qabsadana waxay tiri maajigaa laygu sameeyey goormay soomaalida maajig barata ee bangiyaasha adduunku inay soo dhacaan barteen nikomaan wuxuu ku hayaa haa naagaha weligood wax aqrin wax qorin haahe dadaaba ku fakadaba hadda dad badanaanu ku faka doono ogow haddaa waxaa sheegaysa ay run yihiin dad badan dad iikoo dayaaya qalad galeen ee meesha markay tagaa ingiriis ma aqaan yiraahaan xabad ma aqaani xabad ma qori xabad ma qori ma ogi maraykanka iyo maahan jooga dee kala dugan yihiin ma ogi oo la yiri qofta wax qori ma taqaan wax aqri ma taqaano dembigi dhamaayo loo heesta meesha lagu baabaash maxaa kugu dhacday yaa war ma hayst wallaahi billaahi waxaa idin fari lahay ninkaan sow idin dhahay ka dhabeeya waxaa leedahay lacagtana iskalaa layiri waxa ma qoro waxna ma aqriyo waxna ma maqlo waxna ma arko saas leedhah maxaa jiro mee qof adaa ku fakatay yaa oo xabsiga badbaad saas naftirkeeda dhah wax kala haba dhihino asaga darnaasho u dhaha xumaana u dhowaa yaa laakiin albaabay idiin naqayb waxa ma qoro waxna ma aqriyo waxna ma maqlo waxna ma arkaba xabad ma ogi maxaa fikir hadaa lagaa soo xira fikiraa la keensadaa laakiin haddaa tuugunimo u midowdeen oo waxnii kala sheegaya run yihiin waa idin la xirxiraa xabsigaa liinta ku cabaysa yah way jiraan dad lagu qaldoomay oo shaqaysto yah hadda fiiri dowladda koow markay wax bilaabayso ee bilowda waxay yeeshaa qaladaad badanay samaysaa dowladda naftirkeeda samayso dad waxaa arkaysaa ilmahooda xaq u lahayn oo kale inay laanjada isgoolka ka cunaan oo dad badan la siiyo iyo koo shaqeeyaan la siiyo markii dambana gadaal markii laga soo ogaado laga goosto markuu koronaha yimid waayaa dadna lagama goosan dadkii kaleo xaq u lahayna waa la siinaa marka dowladda naftirkeeda qaladay samaysaa laakiin aniga waa laxaa la sexray ma aaminsani waan diiday dadka soomaaliyeed hadda mee qof waa la xirahaa la yidhi yaa caweyskan caweysma doontiine soomaali meel la arkay iska soo gashaahe bilow ku soo gashaade dadkan nabroyana saa sameeya intaa dhahayso yaa ama inay adeertaa ku jirto amba ina abtigaa ku jirto yaa amba saaxiibtaa ku jirto oo difaac gashaa soomaalida dhan kastay iskaga soo dhawaadaan soomaaliya oo magaciin ha jiro hana joogo aqliga ka xilli saabsiiyahaas ka hadlina soomaalida waa la qalday anagana lacag waa jecelnahay qof lacag necab ma jirto laakiin aniga waxaan la yaabana intaan saxiixow warqadda markaad naagtaan la sexray waa laga sarreeyaa naag kalaa ka sarreyso dadkan dad kalaa ka sii sarreeyo iyada kalegeed ma ah maanta shaqada haddii qofku keento yah qofna ku tababaray meelay ku tutusiya waa ku fiirinaya waxaa sameeyayso way qofti ka sarreysa imaayis waa laga warbixina maxaa aligu leey qoftaan si fiican u shaqaysay waa fiican tahay iyo qoftaan ma raysa naga ceeri maxaa ga dhigaysiin shala maanta dad yimid camal oo Yurub hadda u kow oo heer galbeedka hadda u kow saaxiibow waxa waaye qobka moos aan soo dhigi jirna oo kala leesku dhigay
الله بالله لكن أفلقادة واريبانتا سحر على كينا إيو سحر ماشي لغو حرا إيو حاس وحجرة معه وحجر دونانا معهن مركا وإذن سلامة سومالي ماذا هجرتو أفلقادة هلا جوجيو وحسحر ليرام جيران خيانا جرتو ليس قيانا يو waxaa laga yaabaa dad laga shakisan yahay hadda ka hor lacag hore u dhunsadeen dad dhibaato geysteen dad maxaa qalad sameeyeen in meesha lagu gaadayo oo bal tuugunimada in lagu qabto adoo faraha kula jirto qaba ma taqaana faraha adoo kula jirto lacagtan dawlad ma dhunto yaa adaa u qabtay inay dhunto maahane dawlad hal bini kama dhumo dawladda xoolaha ka baxa u xisaabin nin la arka loo bangiis ku qaato oo xisaabin nin la arka loo saxiixday waa u xisaaban yihiin adaa laga gogoya cad laga soo goyha dadkan waa dad horumareen oo taajireen markaa ku daba daalinahay assalaamu calaykum